Ma xasuusataa markii ugu horeysay oo aad kufto? Jawaabtu waa maya, laakiin waxaa ku dul taagnaa oo ku kaalmeynayay hooyo ama aabbo. Sidoo kale markii aad baranaysay sida loo lugeeyo, iyaga ayaa gacanta ku hayay oo ku daadihinayay, ku dhiirigelinayay, kuna siiyay fursooyin badan oo gacan qabasho ah. Kufidaadana u bedelay dhiirigelin ilaa aad ku guuleysato. Ma xasuusatid, laakiin sidan oo kale ayay u ekeyd guusha ka hor dhicid fara badan, kufid fara badan iyo marmarka qaar oo jabid ahayd. Allah ayaa u naxariiso waalidkeen, ma aysan quusan, ma aysan degdegin, fadhiid, doqon, damiin, midna kuma aysan wicin, balse way ku dulqaateen. Ardayda Soomaaliyeed siiba qurbo joogta, cilmi baarista qaar waxay sheegeen in 93% ay ku dhaceen imtixaanka xisaabta ay ka qaado dowladda, meesha luqadda Ingiriiska ay ka tahay 83%, halka dugsiyada Qur'aanka qalinjabintooda ay ka yihiin in ka yar 3%. Waalidow, aaway gacan qabashadaadii iyo dhiirigelintaadii. Ha ka cabsan oo ha isdhihin waqti ma hayo, waxna ma soo baran. Iskuulka Aflax Tutoring waxa uu kuu diyaariyay adiga oo gurigaaga jooga, macallin habeen iyo maalin kuu soo jeeda. Waa macallin ilmahaaga cashar siinaya, imtixaanna ka qaadaya, haddii uu gafana ugu celcelinaya ilaa uu ka guuleysto. Shaqadaada kaliya waxay noqonaysaa dhiirigelin iyo guubaabin oo aad khabiir ku tahay maadaama aad hore u soo qabatay. Website-ka hoos iska diiwaangeli si aad u heshid imtixaan bilaash ah, annaga oo ogaanayno ilmahaaga heerkiisa waxbarasho. Aan wada qabanno gacanta carruurteena si ay u aflaxaan. Fadlan la wadaag qof kale fursadan, badbaadi aayaha ubadkeena.